waxaad ku dhalateen degmadii Diinsor ukhuwa fil wadan ukhuwa fil nasab ukhuwa fil iimaan intii wada qaateen saddexdaasad ku wada dhalateen dad wada dhashay abti eesan ah ayaa wada tihiin nastaciinu ala umur ad-dunya wad-din wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dal iyo dibid intii maqalkay iyo muuqayga tagan waa salaamantihiin. Kilibkan gaaban waxaan u soo duubay maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bishii Oktoobar 2023. Ilaahay baa madle subhanahu wa ta'ala na waafajiyay. Waxaan aad iyo aad u taageersanahay oo madaxweynihii maamulka Koonfur Galbeed uu tagay degmada Diinsor asaga iyo wasiirka gaashaandhigga gudoomiyaha baarlamaanka dawladda guurayso waxba u kala harin ayaa meesha tagay. aniga ka culimo ahaan ka siyaasi ahaan waxa iga bilaabay marka inaan baaq nabadeed u jeediyo dalkaas ballaaran walaalaha naga wada dego reer dabari reer geelila waxaan leeyahay walaalayaal Ilaahay ka baqa subhanahu wa ta'ala dhiigga islaamka yaan la fududaysan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kacbadaasoo la dudumiyo iyo shakhsi ahlu tawxiid la dilay waxa fudud in kacbada la dumiyo wax sahlan maaha dhiigga muslimku wax sahlan maaha waxaan leeyahay marka walaalayaal markan diinta islaamka ku dhaqankeeda aan idinku ogahay in badan inaad mataqaana dulqaad badan ay sameeynaysan reer aabahayow Ilaahaygeena ka baqa nabiga wuxuu leeyahay salawaatullaahi wa salaamu alayhi xoog badan ma taqaanin xoog badane kan dadka lagdo xoog badan ninka xoog looweeya ma kaas ma hawiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ninka markuu carooda caradiisa qabto oo xajiyo kaas ugu xoog badan uu yiri ummadda kaas ugu xoog badan marka waxaan ogahay xilligan waqtigan xadaariga ah reer aabahay reer dabar khaas ahaan dad ilbax ah dulqaad badan samir badan baa idinku ogaa baaqayga wuxuu ku qotomaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed mudane Abdiasiis Xasan Maxamed Laftagareen hadalkiisa hala qaato hala ilaaliyo dawladnimada hala ilaaliyo maamulka qadariya kitaabka Ilaahay qadariya maamulka qadariya diinta Ilaahay qadariya darisnimada walaalahayga kale reer geelala waxaan leeyahay Ilaahaygeena ka baqa subhanahu wa ta'ala samra dulqaad sameeya ummadaas aadisho shakhsi aadisho ku aarsato waxa ku dhaanta inaad iska cafido Ilaahayga cafisiga badnaana asagana uu ku cafanaya halis cafiyo gacmaha halis qabsado odayaasha dhaqanka wax garadka degmada Diinsor ku wada nool afarta beelood dhamaan waa dad ahlu karaama ahlu izza ahlu sharafa baaqa aan jeedinay dhamaantiin baa idin wada quseeya Ilaahaygeena ka baqa subhanahu wa ta'ala isxakameeya haka tarantroonina shaydaanka hadalkiisa oo kuliyaha idinka cafuufaya iska celiya shaydaanka Ilaahay diintiisa qaata maamulka hadalkiisa qaata Ilaahay subhanahu wa ta'ala u noqdo aan dhooftina gadaal u dhijiyo anigu waxa hadalkaas iga keenay waxa weeyaan danqashada diinta aan ka danqanahay ka danqashada daraska iyo darasnimadu waxay tahay aan ogahay ma taqaan aan ka danqanayo dadkan kumiyaal sano intaasoo qarnay isla soo noolaaya noloshoodu waxay ahayd dad wada nool dawda biyaha wada cabo qorraxdaas ana leh qorraxdana adiga leh saasay maamulkooda ahaan jiray odayaal sharaf leh oo karaamad leh ayaa soo hogaamin jiray dhacdooyinka markii wax dhacana waxa la soo imaan jiray meeshii ay mataqaana lagu kalmaslaho iyo geedka hoostiisi waxa la dhihi jiray maxaa noo heer aha sida iyo sidaas kitaabka waa ogol yahay sulha diintanada waa ogosha waa dhaqan suuban oo nabi maxamed ilaahay kitaabkiisa noo jideeyay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ummad u jideeyay way sulhi aad ku dhaqmayseen ku dhaqma ka joojiya isqaadqaadka iyo iskibrinta iyo shaydaan hadalkiisa hal yeela idinkama ogi Ilaahay ka baqa dhiga hubka iska dhiga carada iska dhiga kitaabka Ilaahay qaata nabiga sallallahu alayhi wasallam hadalkiisa qaata kan maanta oo noo aha mataqaana fa in tanaza'tum fi shay'in faraddu ila Allah wa rasuli waxa hadana maamulaya
amiirkii ugu weynaa oo koonfur galbeed ayaa maanta idin yimi madaxweynihii maamulka koonfur galbeed madax meel ka sareeyo la taabto ma laha aqli cilmi wuxuu hayo waa idin sheegay nabadgelyada wanaageed waxay tahay waa idin sheegay iyo wasiirkii reer dabare muxuu ahaaye qorsheynta mudane xasan xuseen baraf waa idin yimid alxamdulillah ilaahay ma hadii way hadalla karaamad leh sharaf leh ayaa idin kaga soo tagay waxaan idin leeyahay walaalayaalow aniga ka sheekh maxamed ahaan ilaahaygiin inaad ka baqdaan subxaanahu wa ta'ala hoggaankiin hoggaan suuban weey taladiina waa tala wanaagsan taladiina waan aqaana tala wanaagsan weey waa tala weligiin waa talan jirteen wax wanaagsan aad ku talan jirteen wixii wanaagsan aad ku talan jirteen ku taliya laakiin ayaysan noqonin meel ka dhac iyo boji waxa leh shaydaan hadalkiis weey shaydaan weey marka shaydaan yeesu iska kaydirine diinta ilaahay kitaabka nabi maxamed qaata kitaabka ilaahay qaata kaas ayaa ku soo noolay inta ka hor hoggaankan markii aan jiray sheekh xuseen markii aan jiray ila yawmun hada raggi hoggaamin jiray wiligood wanaag bay dadku ku hoggaamin jireen wanaagii iyo jidkii toosna anaga naqiinay iyo dawlad jacaylkii xaladin ka arkay aabaheeyo hoggaanka qaata baag nabadeed ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka yahay ummatul maxamed ka raali ka yahay dhiig muslimko la banaysanin dhiig muslimku waa haaran qof muslima dhiigiisa waa haaran ilaahay ka baq qabiil looma dayin walaalnimada tawxiidku wuxuu sheegayaa haduu cadaan yahay haduu madow yahay haduu jireer yahay haduu jirac yahay المسلم أخو المسلم كسو تغنتا waxaad ku dhalateen degmadii diinsor ukhuwa fil wadan ukhuwa fil nasab ukhuwa fil iimaan intii wada qaateen saddexdaas ku wada dhalateen dad wada dhashay abti eeysan ah ayaa wada tihiin dilka hala joojiyo hadalka ugu wanaagsan ugu sharafta badnaa umada idin hogaaminaysa ay soo fartay idin ka timid halka intu diyaar soo idin imid wax alla wuxuu idin ala sam'a wa ta'a hal qaato hada wabillahi tawfiq antan gafay wa shaydaan inaf wixii aan toosiin ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa ku noqotay baaqas aan wada qaado walaalayaal baaqas qaat walaalayaal baaqas qaat ilaahiin ka baq ilaahiin ka baq ilaahiin ka baq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh